ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee Udhis ayaa ka bilaabay howlo isugu jira nadaafad iyo dib u dhis lagu sameynayo xarunta ugu weyn ee iskaashatooyinka ee Udhis ee ku taala magaalada Muqdisho. Howlaha nadaafada ah ee dib loogu soo celinayo bilicdii iyo quruxdii ay lahayd xaruntaasi oo ay ku shaqeyn jireen iskaashatooyinka waxa ay qayb ka tahay barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo xarumaha muhiimka ah, waxaana ka qayb qaadanayay gaadiidka lagu xaqo qashinka iyo qaybaha kala duwan ee iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee Udhis. Abdullahi Maxamuud Cismaan oo kamid ah iskaashatooyinka ayaa ka warbixiyay muhiimadda xaruntan ay u leedahay iskaashatooyinka Soomaaliyeed. wasaaradda iskaashatooyinka Soomaaliyeed ayay haajirtay waxay ka shaqeyn jirtay beeraha, wasaaradda beeraha, wasaaradda kalluumaysiga, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda gaadiidka cirka dhulka intaasoo ayay ahayd. maanta way burbursan tahay. waxaan halkan ka cadaynayaa inay 6 sano anigu shaqeynayay aan ogahay inay saxaadi xafiiskii wasmayndool oo ahaa iskaashatooyinka gudoomiye ayuu ahaa fakay suugaanta hadda ku jirta howlka gadaal ayay lahaayeen. halkan marka maanta way burbursan tahay. waan u jeedaa maanta waxaa ka bilowday dib u dhis baa ka bilowday. waxaan halkan ka cadaynayaa in meeshaan ahaa jirtay wasaaradda iskaashatooyinka haddana lagu bilaabay gudoomiyaha ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee Udhis Cabdi Cismaan Shuuriye ayaa ka hadlay muhiimadda xaruntan ay u leedahay iskaashatooyinka isagoo ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan iskaashatooyinka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dib u dhiska lagu sameeyo xaruntan muhiimka ah iskaashatooyinka. waxaan iskaashatooyinku meel kasta joogaan shalay waxay ku dhiseen qaramada ku dhiseen maantana way xoogooda iyo xoolooda ku dhisayaan. maanta waxaa soo qayb gashay 120 lixda urur oo min 20 120 ayaa ka soo qayb gashay. waa nadaafad iyo baalla ku jirta, shaqaala ku jira. waxaan dhisi doonaa haddii alla idmo oo isku tashanaynaa cidna aanan macawilo ka sugayn. waxaan rabnaa xuduudeenna iyo maskaxdeenna iyo wadajirkeenna inaan ku dhisano. waxaan baa ku diraa dowladda iyo mataqaana dadka kale oo xarumaha saan oo kale ah leh. waxaa la hay'ad walba isku tashato ay dhisato meesha ay dhisato. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.